daawadeel wardegdega dalka Turkiga waxaa la soconay in dalka Turkiga sanadihii ugu dambeeyay ama halkii sano ugu dambeeyay ama labadii sano ugu dambeeyayba dadyoogii u faraha badnaa laga tarxilay YouTuber u dhashay dalka Turkiga oo waxa uu tagay dalka Afghanistan oo kooxda Taliban ay maamushaan jeelay sidaas la mid ah caasimadiisa Kabul muwaadinkan Turkiga ah ayaa waxa uu la kulmay malaha 15 ilaa 30 dad oo muwaadiniin Afghanistan ah oo guud ahaanba laga soo tarxilay dalka Turkiga gaar ahaan magaalooyinka sida Istanbul, Izmir iyo sidoo kale Ankara. Arrinta cajiibka waxay tahay waxaa jira in Afghanistan waa dad cajiib ah oo iyaga iyo Suuriyaanku way socdaan yani waa dad aad bay u socdaan hadda dalkoodana Ilaahay nabad waarta uga dhigay walow hadda la sheegay in sidii hore uu dhaamo intii ay dowladda Mareykanka ka baxday. Ninkan Turkiga ah waxa uu soo dhaxgalay suuq weyn oo suuqa waxa jooga waxay noqdeen wax laga soo wada tarxilay dalka Turkiga. Wuxuu la sheekaystay dhalinyaradii laga soo tarxilay oo kuwa fara badan meelihii ay ka shaqeyn jireen in dowladda dalka Turkiga ay soo tuurtay luuqadana waxa laga yaabaa inay 2% 3% qaybtood garanaysa kuwa kalena si fiican ay u yaqaanaan. Oo waxay sheegayaanba in dowladda dalka Turkiga muddo dheer ay intay xidhay kadibna ay soo tarxishay dalkooda. waraysi kooban ayuu la yeeshay intii ugu faraha badnayd arrinta cajiibka iga yaabsay waxay tahay in muwaadiniin Afghanistan ah bal wanaagooda yani tarxiil intii laga soo tarxilay ninkan dalkoodii walina waxa macquul ah fara badan marka dowladda dalka Turkiga ay tarxilayso qaar baa dhibsado oo si gaar Afghanistan oo kale marar badan baan media ku arkay iyagoo ka cabanaya bal marka hore aan daawasiyo muuqaalka ku saabsan Afghanistan kan iyagoo waramaya muwaadinka YouTuberka ah ee Turkiga ah. Mi gittin? Ne zaman? 5 ay oldu. Deport oldun ha? Çalışıyor muydun orada? İstanbul'da mı? Nerede? Tekstilde mi? Su yıkama. Su yıkamada. İstanbul'a mı gittin? Ha İstanbul'a Esenyurt'ta. Esenyurt'ta. İstiyor musun yine gitmek Türkiye'ye? Nasıl gideceksin? Kaçar. Sonra deport mu oldun? Evet. Aa. Hayırlısı be. Türkiye. Türkiye ya. İstanbul. İstanbul. Zadurbarno. Aa, sen gittin İstanbul'a. Ha. Sonra deport mu? Ha deport. Aa. Ramazan vallahi ne yapıyorsun? 600 Ah kakari. Evet arkadaşlar. Tani waxay ku cadaynaysaa in dadyoogii ugu faraha badnaa maadaama hal goob oo dadkan cid kulmisay ma jirto maadaama hal goob dad 30 qof kor u dhaafaya dalka Turkiga laga soo tarxilay ay joogan waxayna ku cadaynaysaa in gudaha dalka Turkiga sanadihii ugu dambeeyay dadyoogii ku faraha badnaa markaas laga tarxilay haddii magaalada Muqdisho ama magaalada Hargeysa la tago oo muwaadin Turkiga u tago waxa laga yaabaa dadyo fara badan oo dalka Turkiga ama laga soo musaafiriyo laga soo tarxilay ama siyaabo kale ugu yimiba in goobtaas uu YouTuberka kula kulmo walow dalka markaas Muqdisho ama si gaar Muqdisho YouTuber Turkiga iyo wixii lamid ah aysan goobaha caamka ah safaarada iyo meelahaas ay ku xariisan yihiin sidoo kale airportka Muqdisho marka saaxiibada muuqaalka si share gareeya YouTuberkaasina waxa YouTuber la kulmay Afghanistan ku faraha badnaa laga soo tarxilay dalka Turkiga oo maasantiin waxaan idin codsanaynaa boggan oo Cabdul Nadar aynaad bal 10,000 ad weekend nagaadsan maasanidin. Hayırlısı be. Türkiye. Türkiye ya. İstanbul. İstanbul. Zadurbarno. Aa, sen gittin İstanbul'a. Ha. Sonra deport mu? Ha deport. Aa. Ramazan vallahi ne yapıyorsun? 600 Ah kakari. Evet arkadaşlar.